ترتم the next vacation انت country قاعدين ها وانت انتقينا Somaliland Somaliland yeah really ها why Hargeysa why Hargeysa wax badan aan ka maqlay ficnaan badan aan ka maqlay waxyaalo badan aan ka maqlay so aan meel oo historic waaye meel aan jeclaan lahaa inaan soo arko waa Hargeysa really okay I want to know سؤال عن رأي أنا with you and it's because honestly just disclaimer why I don't have knowledge معنى information إيه وح برشة أهان عمل عن رأي إنه with you so is Hargeysa so Hargeysa مياه من Somaliland Somaliland waxaa waaye ii sheeg wadanka waaye okay Hargeysana magaalo madaxda waaye okay so laakiin Somaliland dadka badankooda iskuma raacsano okay just saying okay all right so Somaliland عندها all right just for the إن برت أهانا ويدي هو كان and it's not to ممكن يوم أهم I want to know because وحيال بدنا كم خلي Hargeysa freedom of speech ملايين freedom of speech yeah معناه waxaa la yidhaha freedom حرية قول basic human rights حرية القول هكذا دامية yeah of course waa ka leeyihiin I hear وحيال بدن maxaa maqashay معنا like وحيال بدن ما laga dhigi karo dowladooda and I don't know I hear so many things but I don't know I want to learn هدي واحد كسيسي please إذا كان هدي كسيسي commenting وزخر I want to go هرجيس وروا but I hear like dadkood wax ma laga sheegi karo governmentkood wax ma laga sheegi karo dadka ma ahan governmentiga maybe governmentiga laga may horta ma aqaan ani laftigay wax ma aqaan laakiin waxyaalaha aan ka maqlo social media waxay tahay haddii aad dowladda haddii aad qof Soomaali aad tahay oo Soomaalidan kaleeto ay tahay oo aad dowladda aad dhahdid dowladda Somaliland sidaan waaye miyaa wax adi aad wax sidaan miyaa ma aqaani because Somaliland macnaheedu weli waxay dhammaantooda aaminsan yihiin badankooda aaminsan yihiin in Soomaali inay ka go-een mar horeeto laakiin adduunka kale ictiraaf badan macnaheedu recognition ma samaysan wax ictiraaf waxan adduunka dad wadamo badan kaleeto Somaliland dowlad ahaan uma aqoonsano laakiin ayaga waxay aaminsan yihiin uma baahin anaga in la aqoonsado weligan dowlada ahayn weligan gooni u taagnayn anagana haddana weli gooni u taaganahay marka muxuu ahaa dad Soomaali jiraan oo ma aragtay intay waxbay ka sheegeen ay dhaheen oo Somaliland ma aqaani sida aan filaayo marka social media wax ka sheegeen Somaliland wax ka sheegeen markii ay meesha ay tageen waa la xiray waa ciidamada booliska qabsadeen meeshana marka aad tagtid of course waxaa waaye waa lagu baaraa hadda ha muqdisho camal hadda qof ku jiro waa dad waswaas qabaan camal waaye from my understanding safety-gooda fiirsanayna marka waa so marka ayaga ahaan hadda muqdisho markaa tegaysa markaan gelaynay Soomaaliya waa lagu ogolaana oo gelay Soomaaliya laakiin wax badan oo mana la weydiinin yaa u imaaday yaa ku socotaa inkastoo annaga meel gooni oo caadi oo annaga su'aalahaas aniga meel goonaan laga bixiyey moogtahay meel oo waxaan laga bixiyey meel kaleeta gadaal dambeetaan laga bixiyey markaa Soomaaliya tagna anaga meel goonaan laga bixiyey safka caadiga maanan gelin laakiin haddii waxa u malaynaya ma aqaan in la weydiin waa laga yaabaa dabcan xagee u socotaa xagee ka imaaday maxay tahay waxyaalahaas badan laakiin qof Soomaaliya markaad Soomaaliya badankeed raboorkan lagaa celinaya ma malaynaa laguma dhahayo laakiin ayaga ahaan markii waxaa maqlay markii aad Somaliland aad galaysa oo tagaysid yaa u socotaa yaa ku imaaday yaa ku degaysa Mareykanka waa sameynaa sidaas camal waa sameeyaan laakiin waxaa waaye
xaggaasi waa in they waxay rabaan inay detail hubiyaan. lagu sameeyana detail lagu weydiinaa su'aalo badan lagu weydiinaa So, xaggaas qof ay qabsadaan. maraykanka kaga daran xitaa maqlay saasaa maqlay run iyo been weligay ma tegin insha allah inaan tegin oo rajaynaa hadduu ilaa yaraado Yeah. haddii oo haddadaan podcastgan la ii diidin I'm joking yeah That'd be really interesting. I mean, couple Somaliland into dad badan ma and really maxaa- nice. what do you mean Somaliland maxaa ku daa Somaliland saaxiibkay college-ka aan still aad marka college-ka dhiganayo roommate-kayga Yes. yes Ahmed. Ahmed Really Somaliland nice guy. yeah I love him He's yeah a really nice guy. saaxiibkayga Yeah. Somaliland mashallah, waay such a- mashallah yeah, well, a good He's so heart. good. Yes. Yeah, I love wallahi. him. I love him. He's so good Mashallah. guy. Yeah, I know Mashallah. him. I know him. Yeah. I Classes la qaateen Somali. no class misqaadanin, but we were in the same department. Roommate-kayga waaye Maryam isku department yahay chemistry isla chemistry ahay. is qaadan. So I By- used to see him. I think why his research was it next to my class. I don't know. Anyway, we always elevator ka school arki jirnay, and he asked me one time. He's like, "Somali ma tahay?" I was like, "Yeah, Somali anahay." And then I think that's how you introduced. aniga Maryam asaga ku yaqaan intaan ku aqoon aniga Yeah. roommate-ka waxa yarka isla marka jaamacadda dhiganaya yarka isku qolka ahayn waay Yes. Yes. Somaliland no I'm. So I mean, and he apart from حتى تتكلم my mom has Somaliland friends. That's في عواه. Yeah. They're really nice, and not only that, وإلبح سنين. That إلبح واي. yeah I'm not- waa dhihi karta waa ilbax waaye That إلبح واي. waana dhihi kartaa Soomaalida kaleeto Soomaali jirta talbax waa laftirkooda very Yeah. valid, Yeah. So ilbaxnimada qofka familkaas ku xiranta family yeah. Well, and so like the ones on Arki, I've not seen like waxaan arkin like that إلبح or like waxaan malan arkoya like modern. right on ha Arki. ha ha Anyways, so what was it? My point. Somaliland Somaliland. They are good people. So it'd be interesting in waddan kooda aan tagaan aan Yes. arko sawir khamayn, but laakiin waxyaalaha oo waxyaalo badan inaa ogaataa harta inaan ogaadaan rabaa just because the freedom of speech waxaan weydiiyey I heard waxaa like meesha wax walba iska hadli kartid le waxaarta iskama dhigi kartaa halkaas wandaa markii la I was like oh okay that's interesting. yes That's interesting. What else? Freedom of press, freedom of obviously religion. Muslim right to bear arm. right to bear arm Maraykan right to bear arm Maraykan kale waay خلاص What بقي is- freedom of speech مجرم كل the first 10 amendments the bill of rights كان ستري يعني kaas ma jiraa ma la ogolo horta Soomaaliya qori lama ogola qori uma maleynaya in qori lagu qaadan karo xaggaas Wallahi. inaad gadan kartid qori oo lacag baxsan kartid oo macnaheedu slide soo for qaadan kartid safety Somaliland even Somalia I thought in Somalia ونالسو بيساس wallahi ma aqaani really gar ma aqaani okay all right well I really want to know هدي إذن كنا شيء كرتين I want to know Hargeisa freedom of speech ملايين freedom of Somaliland Hargeisa Somaliland like what do you mean freedom of speech though maxaa ka wadaa freedom of speech like freedom of speech waa weyn yahay freedom of speech maxaa ka wadaa inaad Somaliland tagtid oo dhad Somaliland iyo Soomaaliya arrinteeda inaad ka hadashid ma rabtaa macnaheedu maxaa waxaas maba la galaba aniga see okay so here's بني آدم سوى مكسسة مركي واحد limit قرأي مركتي he wants to say everything بني آدم مركي limit لها بني آدم مركي limit لسي مركتي مركاس لزبروا وحول بين السوبيو so I'm not the type أو وح فلفلة أو فافاجيسو أو جلجليسو أو you know لكن لكن مركي limit لسي لكن هذه limit إجلست I'm going to be curious. I'm going to say, okay, now, government ka ididi mano ina waxaan ka sheego. Now I want to know what's up with that government. Maxaas ka kooban yahay? Maxaad intaas ka shaqeey? You know what I mean? Because so waxaad dhahaysaa haddadan waxaa leedahay marka pointiga hadda waxaan u fahmay dadkaas dhalinyarada ee Soomaalida ahaayeen ee wax walba ay ka sheegaan in wax laga soo qaado maba ahaynbo in ma aragtay ma ahan in oo dowladda macnaheedu in la xiro iyo waxyaalahaasi maxaa yeelay haddii xiritaanka la xiray ayagaaba dhibaataba kasii imaadayba oo dhibaatadaas ay tahay waa laga sii hadlooya haddadaana laga sii hadlooya oo saan waa negative positiveka raadinaya negative aba uga soo baxayba dadka la xiray now waxaa laga hadlaya there is no freedom of speech hadda qoriyatul xool muxuu ah qoriyat what is af Soomaaliga maxaa u dhahaa hadalka xornimada
والصوماليين بدنا waxay isticmaalaan luqadda carabiga isticmaalaan حرية القول من الله Is that cold? I don't know قول هذا anyway whatever Anyway, yeah. لكن ما دام هذا So أصلا ضد بدنا عذاب ضد بدنا وصي فرفرتين Ha, وحي dadka هذا America dadka joogaan now America dadka joogaan oh okay dadkaas waxaa la xiri because kana ay ka sheegan oh does that mean oh kan masub oh why so when you limit bini aadanka yeah they're gonna be curious Yeah. of why yeah so that's why I'm good so anigana had the curious you know not that I will say anything bad ما hinta like I don't care I'm not a politician mihi Yeah. politician مدح galo I like to travel meel walba Hargeysa waa tagaas Somaliland Hargeysa waa tagaa I will go to inshallah Djibouti I love Djibouti the people of Djibouti are really good Djibouti I have a couple of Djibouti friends they're really nice I want to go waddankooda inaan arkaa rabaa yeah so but laakiin before I go I want to do homework inaan suubiyaan rabaa because iska takle iska tagi kara yeah sometimes because some places limit us leeyahay yeah limitation Yeah.